ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guul ka soo gaaray safar degdeg ah oo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. safarkan oo qaatay muddo 2 maalmood ah ayuu sida uu sheegay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda dalka Soomaaliya waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka gaaray guul taariikhi ah. Addis Ababa ku yimid booqasho rasmi ah ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdiga hogaaminaya wafdiga si fiican ayaa lagu soo dhaweeyay waddanka Itoobiya. wuxuu maalintii horeysay kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya His Excellency Abiy Ahmed Ali. kulankaasna uu ahaa kulan aad u qoto dheer oo laga wada hadlay xiriirka labada wadan oo soo jireenka taariikhiga ah iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirka meesha hadda uu joogo meel ka fiican sidii loo gaarsiin lahaa. waxay ka wada hadleen xasaradaha ka taagan mantiqada gobolkan. waxay kaloo ka wada hadleen sidii lasaga kaashan lahaa xagga arrimaha maalgashiga iyo isweydaarsiga ganacsiga waxbarashada iyo xagga beeraha. waxyaalahaas dhan isla meel dhigeen labada ra'iisul wasaare. kadib ra'iisul wasaaraha wuxuu maanta kulan la yeeshay gudoomiyaha ururka midowga Afrika mudane Muuse Faki oo isagana ku qaabilay xarunta midowga Afrika EU kala hadlay warbixin guud uu ka siiyay xaaladda waddanka. wuxuu kaloo ka mahadceliyay ra'iisul wasaaraha contribution-ka ay geystaan ciidamada AMISOM ay ku sugan Soomaaliya oo amniga Soomaaliya ka qayb qaata. kadibna labada gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha waxay isweydaarsadeen fikradaha ah sidii loo sugi lahaa amniga iyo horumarka Soomaaliya ee tigsanaysay 2020 sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah. wuxuu kaloo maanta ra'iisul wasaaraha kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda waddanka Itoobiya Dr. Gabayoho oo isagana aad uga wada hadleen xaaladda waddanka iyo labada wadan. ra'iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu ka mahadceliyay ciidamada Itoobiya oo jooga waddanka Soomaaliya oo sugaya nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. waxay kale isla meel dhigeen sidii loo kobcin lahaa xiriirka diblomaasiyadda iyo xiriirka siyaasadeed ee labada wadan. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha wuxuu kulan la qaatay mudane Ismaaciil Sharaag oo ah ninka madaxa ka ururka midowga Afrika u qaabilsan peace and security-ga nabadda iyo security-ga. isagana ay ka wada hadleen arrimaha AMISOM joogaan Soomaaliya iyo xaaladda guud ee amniga gobolka. booqashada ra'iisul wasaaraha waxay ku soo dhamaatay guul.